gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya ayaa waxa maanta ay kormeer ay ku sameeyeen qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir. kormeerka gudoomiyaha ayaa la xiriiray sidii ugu kurgeli lahaa xaaladaha ammaan iyo howlaha kala duwan ee lagu sugayo ammaanka magaalada Muqdisho. faafahinta warkaas waxa ay wariyahayaga Muuse Cismaan Abtow. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeerka waxa ku weheliyay qaar kamid ah ku xigeenadiisa waxaana ay kormeer ku tageen wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood oo ay ka socdeen howlo lagu sugayay ammaanka caasimadda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xog wareysanayay saraakiisha ciidanka ee ku sugnaa wadooyinka isagoona sidoo kale gudoomiyaha kormeerayay goobaha ganacsiga oo ay xilligaasi furnaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa markii uu soo dhamaaday kormeerku waxa uu saxaafadda ugu warbixiyay ujeedada kormeerka iyo meelaha uu ku tagay. waxaan soo galnay kormeer waxaan ka soo bilownay ilaa iyo Carwo Iidka iyo Xarir Yaale halkaasaan ka soo bilownay ilaa wadada Sodonkan soo marnay wadada wadnahan ku soo laabanay haddana waxaan rabnaa inaan ku laabanno wadooyin kale fara badan aan marno waxay kamid tahay shaqadayna oo maaragtay oo yoomiga ayay kamid tahay maadaama amnigii gobolka Banaadir sida aad la wada socotiinba processkeeda uu socdo oo lagu la wareejinayo amniga gobolka Banaadir arintaas ayaan rabnaa inaan si kuur galno lana qaybsano shacabka magaalada Muqdisho inaan la qaybsano xagga maaragtay amnigooda iyo noloshooda iyo ka warqabkooda marka sida loo sugayo amniga ayaan rabnaa inaan ogaano caawa habeen dhaweed waxaan marnay wadooyinka kale wadada Makaal Mukarrama ilaa iyo iskuul Bulisiyo iyo wadada Afasoni aan marnay caawana wadooyinkan ayaan soo marnay joogtoona naga doona kormeerkayna. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku amaanay ciidanka ammaanka dawladda sida ay u sugayeen amniga xilliga habeenkii waxa uuna dhinaca kale ka codsaday shacabka inay ciidanka garab ku siiyaan sugidda amniga. gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa soo hadal qaaday dhismayaasha wadooyinka caasimadda kuwaas oo uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan sugidda ammaanka iyo kor u qaadista ganacsiga. fursadna wadada aan taaganahay waa wadadii sayidka ee howlwadaag aan taaganahay oo dhismo ay ku socoto oo gobolka Banaadir runtii doorkiisa lama ilaawanka uu qaatay ay cid walba ay ogsoon tahay. waxaan rabnaa shacabka Muqdisho inaan u soo celino wadooyinkoodii iyo dayactirka iyo dhismooyinka wadooyinka aan u soo celino si ay isla jaan qaadaan amnigana waxa qayb ka ah dhisidda wadooyinka qayb ka ah. haddii wadadan la dhiso layr yeelanaysa business-ka ka furmaayo shaqo abuur ka bilaabmaayo wax badan ay wadada kaliya ay dhali karaysaa. marka sidaas aan rabnaa wadooyinka kulligood inaan wax ka qabanno inta awoodayna ah xooggaana saari doonaa sidaan amnigu uga fikiraynaa shacabka inaan servicekiisa horumarkiisa aan ka shaqayno idinkuna idin mahad celinayna. kormeerkan oo socday habeenadii la soo dhaafay ayaa looga gol leeyahay in lagu adkeeyo amniga magaalada Muqdisho. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.